kusoo dhawow channelka Tab ee arrimaha ganacsiga iyo tiknoolajiyada mar kale iyo muuqaal cusub. Sidee casharada loogu duubaa kombiyuutarkaaga? Fast Stone Capture waa software fudud lehna awood muuqaal duubis shaashadeed si dhameystiran haaf ama qayb ka mid ah. Wuxuuna caawinayaa macallimiinta, ardayda iyo cid kasta oo rabta in ay duubto dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka socda shaashada kombiyuutarka sida hadalka, mikrofoonka, sharaxidda casharo ku diyaarsan noocyada kala duwan ee dukumeentiyada wax lagu qoro. Waxa kale oo lagu sameyn karaa in sawirro looga qaado meel kasta oo shaashada ka mid ah loona diro dukumeentiga Word, PowerPoint, daabacid, email ama lagu shubo website. Aan gudaha u galno. Fadlan hadda channelka ku cusub tahay subscribe dheh oo gambaleelkana furo sidaad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaaladeena daawada. Asxaabtaadana la wadaag. Commentigana lagu reeb qaybta hoose. Tab kala tasho wax walba aad tabanayso dhanka ganacsiga iyo tiknoolajiyada ah. Setup-ka software-ka waxaa ka heli doontaa qaybta hoose ee faalada muuqaalka. Waana qaybtan hoose oo uu ku qoran yahay magaca software-ka Fast Stone Capture Setup. Linkiga ka hooseeya ku dhufo. Linkiga markaa ku dhufatana wuxuu ku keeni doonaa meel ay ku kaydsan yihiin versionska software-ka oo kala duwan. Hal waa u degsan kartaa. Haddii rabtana iyagana selection wada saar hal mar oo degso kadibna markaa selection saarto halkaan kore fur oo download raadi ama dhinaca midigtay kaaga soo bixi doontaa meel uu ka raadi meelahan kamid ah download oo download markaa dhaadid software-ka qaybta hoose wuxuu kugu muujin doonaa inuu deganayo markuu degay u dhamaadana ganta ku hortaa la fur gantaas markaa furto wuxuu ku qaadi doonaa show in folder ay ku qoran tahay halka computerku waxa ku dejiyo download-ka ah waa kana software-ki oo right click dheh kadibna copy dheh desktop-kaaga meel kamid ah raadi oo ku banaan kadibna right click ku dheh oo basti halka software-ka dhig software-kan waa WinRAR ina furfurnaa rabnaa right click ku dheh extract file kadibna okay ayaan dhigi doonaa si folder caadiya noogu soo baxo folder-kan ayaa noo soo baxay shareable files ay ku qoran tahay sifur saan ogaana waxa ku jira shareable files sifur waa kana versionska kala duwanaa ee software-ka mid kasta waa WinRAR wuxuu rabaa in la furfuro right click dheh extract okay ku sameey kuwa kalena saas oo kale right click extract files kadibna okay kalena sidoo kale waa versions kala dambeeyay mid kasta una waa shaqeynayaa mid ka arta ku shuban kartaa aniga laakiin hadda waxaan rabaa mid cusub inaan ku shubo ah 9.3 aniga hadda 9.3 gaas ayaan aadina 9.3 ku dhufo kuwan kale waa ku shuban kartaa laakiin 9.3 gaas ku dhufo waa kana 9.3 ga halkaan ku kiri doonaa right click dheh run as administrator ku dhufo yes ayaa dhigi doontaa meesha ku imaan doonta kadib next I agree install oo ku shubid ah finish ayaa dhigi doontaa marka ugu dambayso inuu ku dhameeyo marka ugu dhameeyo wuxuu ku keeni doonaa laba option midkood in software-kan hore kuugu jiray oo ka dhacay ama hadda uu cusub yahay oo ku siiyo waqti xadidan 7 biri hal bil wax un markasta waa inaad kala garayso labada marba waa ku qasbanta saanana ku soo bixi doonta inta registration code ayaa heli doonta ama wuxuu ku dhigi doonaa maalmo ku sii doonaa sida muuqaalkan aad ka arki doonto hoose about kaas markaa ku furtid midna kuma furmaayo midna waa ku furmaa wuxuu ku keeni doonaa maalmo cayimanaha ku dhiman labada marba karaaga oo ka rabaa karaagana saan waay saan oo kala loo sameynaa inta registration code kaas ku dhufo keygaan oo kala soo qaado kuwa kalena saas oo kale u dhex yaala ka raadi halka name-ka ay ku qoran tahay soo koobiyay oo waxaa la soo aadaa meesha ugu horeyso user-ka ay ku qoran tahay halkan wax koor ka soo koobiyeyso koorka mid kamid ah waxaana la soo aadaa halka hoose oo koorka ay ku qoran tahay kadibna register dheh register markaa tiraahdo software-kan wuu kuu shaqeyn doonaa waa dhacay ma jirto meesha about hadda daan furno wuxuu noo keeni doonaa in software-kan uusan trial ahayn oo maalmo cayiman uu ku siineen isla markaasna uusan dhacsanayn waad isticmaali kartaa ilaa computerkaaga aad ka tirtiraysid soo xir markaa waxaan bilaabaynaa inaan muuqaal duubno kuwaan u soo laaban doonaa ee halkaa ugu horeysa fur editor-kaas inuu jag saaran yahay ka hubi halkaan screen recorder-kaas dooro oo meesha aan rabno inaan muuqaalka ku duubno ku dhufo si screen recorder-ka markaa kusoo dhufato dhowrkan qaybood ayuu ka kooban yahay kan ugu horeeya haddaan tijaabino oo record aan dhahno shaashadda active-ka ayuu noo duubayaa oo markaas kuu muuqata laakiin waxbuu ka tegtegayaa
qaar ka fiican ay doonaan rectangle ka hadaad dooratidna oo record aadadina wuxuu ku geey doonaa in qaab laydiya inuu wax kugu duubo waa kaas hadda selection ka hadaad dul saarto qayb laydi ahaan ayuu wax u duubi doonaa hadaad start tiraahdan saas wax u duubaa naga xir waxa ay doonaa qayb kale qaybta koosay baliidan tag waa fixed size kaasi qayb cayiman ayuu sawirkaaga qaadaa iyadana oo cabirkiisu waa go'an yahay kiyaadaati inta rabnaan ku jiideyni sigana iska xir qaybtan u soconna maahan qaybtan full screen shaashadan oo kaaga qaadaa laakiin wuxuu ka tagi doonaa taskbar waa qaybta hoose qaybtaas hoose ayuu ka tagayaa sigana oo inta selection ka saaray waa qaybtaas qaybtan soo aad full screen waa qaybta arag qaybtan aan muuqaalkeena ku duubayna qaybaha ugu fiicanna waa qaybtan meeshaan aan hooy inuu microphone ku dooran yahay kadibna record aan dhigi doono duub okay marka duub yiraahdo hore waa ka bilaabi kartaa ama waxa dhigi kartaa ciwaan iyo soo gali bal ciwaan aan gelino halkan ciwaanka muuqaalkaaga aartid inaad duubtid uma ciwaan ka dhigaysaa ciwaankaas aad ka dhigaysidna meeshaan ku qoray on kadibna colorka baad ka bedeli kartaa meeshaan color ka rabta ka dooro color-radan kamid ah ayaan qaadanaynaa fartana waa weyneyn kartaa waxaan ka dhig bold ka dhig meeshaas kadibna start aan leenahay inaan muuqaalka duubno shaashadan oo dab saarnay muuqaalka markaad duubaysid duubista unba bilaabo doontay waa in software-ka wax ku duubaysid oo ku kacsan yahay ama haysatid hada waar oo kala daartid inaad wax ka duubtid oo qoraalka aad duubayso waar kugu qoran yahay wax sharxaysid waar ka sharxi kartaa haduu PDF kugu qoran yahay qoraalka aad rabtid inaad sharaxdid oo qofka kale ama dadka kale ama ardayda aad rabtid inaad u duubtidna waa ama PowerPoint aad rabtaa inaad cashar PowerPoint ku diyaarsan sida maalmahanba ardayda online wax ku baranayeen saasoo kala sameyn kartaa isigana waa duubi kartaa waa la mid isigana soo xirno aan aadna markaa muuqaal file explorer kan oo kala fur oo halkaan noo soo qaadi doona muuqaal kamid ah raadi muuqaal computerka ku kaydsan oo markaa furto waxaa heli doontaa muuqaal ku soo baxay muuqaalkan u sharaxi doontaa qof arday markaas danaynayo oo isleedahay inuu wax u sharaxdid aragtid isigana soo xirno soo arkeena kan iska sii xir bal markaan aan browser aadno oo website xog ku jirto kala daarabtid inaad qof u sharaxdid sigana u sharaxi kartaa ana software-kan aan dhahnay wax kastoo shaashada dul saaran oo duuba video YouTube wax ka duubi kartaa oo muuqaal ka sharaxi kartaa meel uun shaashada kamid ah marka ugu dambeysana aan video-ga aan save garayno meeshaas calaamadaas waxay muujinayaan in recording ama duubitaan oo socdo marka ku dhufatana wuxuu ku keeni doonaa calaamadahan saddexdan discard waa inaad tuurtid save oo ah inaad muuqaalka aad save garaysatid hadda anaga save kan qaadanaynaa save kan aano muuqaalkii meel kamid ah shaashadaada ku save garay magacuun u bixi markaas magac marka u bixisidna kadibna save ayaan dhihi doonaa already hore u duubnay ayuu magac ku magacay haduu jiro ku bedel ayaa leenahay ama noo bedelo waa kana muuqaalka inta aan hadda soo duubnay ayaan rabnaa inaan fiirino bal muuqaalka miyaa meeli aan marno PowerPoint-ga PDF-ki video-ga aan fiirinay oo computerka aan ka dhex raadinay wixii oo dhan uu noo muujiyay oo duubitaan ah intii oo dhan uu noo duubay ilaa calaamad ugu dambaysa intaan waa duubid bal file-kaaga soo aad oo meel kamid ah computerkaaga video-ga aan ku save garaynay waa sii diri kartaa qof dadka la sii share garayn kartaa soo xir isaga dhan iska soo xir oo markaan waxaan aadaynaa inaan sawir ku jarno video waa kusoo duubnay muuqaal waa kusoo duubnay waxaan rabnaa software-ka inuu adeegsan inaan sawirro ku jarjarno meel kamid ah shaashada yaalla ama online-ka yaalla kusoo fur hal sawir oo computerkaaga ku jira sawirka markaa kusoo furtana sawirkan waxaan rabtaa inaan qayb ka jarato selection-kan oo kale soo saar selection-ka qaybo kala duwan oo dooran kartaa qaybtaan uu ku noqon karaa daarabta qaybaas inaad jirtid iska xir qaybo kale aan fiirinaynaa sigana wax loo jari karo ama sawir loo qaadi karo qaybtaan kale waxay ku qaadi active window shaashada markaas ku muuqata hadda waxaa noo muuqo doorashada loo saaray taskbar-ka iska xir sigana qayb kale aan fiirino kan oo kale isna shaashada dhan ku qaada laakiin marka qaar waxa laga yaabaa inuu qaybo kamid ah ka tago enter ayuu u baahan yahay inuu dhaho enter ayaa dhigi doontaa sigana okay sigana iska xir waxaan fiiri doonaa iyadana qayb kale qaybtaan iyadana waxay noo qaadan doontaa rectangular oo ah qayb laydiya inuu wax u jaro laydi ahaan hadda ujeedaa marka intaasan selection-ka saarnay ama doorashada aan saarnay uu jaray bis wixii kale kasoo tegay qab afar gees waaye qaybtaan kale waxaa loo yaqaanaa freehand inaad gacanta qaab adiga aad ku sawirtid intaad rabtid inaad jartid
وكان أساقو سمينا وفري هاندي أنت هذا أنت وديد وسكلا سعنا أنت أصلا باجر ما يسمى كسي دي سيدنا قاعد تكلم كوجيسي سيجا سيجا قاعد تقول كذا سيجا ناس هو جرا عرنا وفول سكرين كان شاشة بدنا هالمرة خبرنا وأنا متوقف عن دارت من شاشة بدنا نصور لها هذا قاعد هالمرة سيجا قاعدن كرتا سيجا وحرينا سي قاعد تقول كذا نسي أدنى كانوا كلا فيكسيت سايز أيوة قاعدة إن يروح عيمن يا ربطا إنا صور كقاعدة وحبا أدم كوجيين كليك بمبات وأقول فناس لما كنا صور كيو قاعدة أوكي markaan xafiirinayna sawirka soo meesha laga qaaday waxa loo diri karaa meelahan Word Excel waxa soo dhan loo diri karaa oo laga dhigi karaa walahan balan browser fiirinayna sawirka soo qaadno markaan xagga internet ama website inaan sawirka soo qaadno sawirkan oo kale inta hadda sawir lagu jarayo kala sawir kamid ah ayaan soo qaadi karnaa inaan ku jarno rikitaan kale oo kale hadda iska qaadanay full screen oo ku jari kartaa kuwa kale dhan waa adeegsan kartaa rikitaan kale waa ku dhufano isla markii wuxuu na geerin doonaa halkii lagu yaqiina software-ka markay sawirka oo jiro kale halkaan uu keena sawirka marka hadii isbedel inaan ku sameeyna rabnaa ama sharaxaad ama qof aan u dirno ama inaad meel ku save gareysatid bal drawga soo kala ku dhufo drawga wuxuu sameeynaa in isbedel lagu sameyn karo sawirka calaamado iyo wax lagu jijiiri karo qoraal lagu dul qori karo waxa soo dhan uu sameeynaya waxa sawir adiga qof inaa u sharaxdid oo software-ka aad adeegsanayna u dirtid aragtid shaashadaadina soo qaada kana kala soo qaadi kartaa soo qaadi kartaa iyagana iyo kuwa kala dooran kartaa kanoo kale rinjigan oo kala soo qaad sigana meelaha ku dadaadin kartaa hadii wax calaamadeynay sidoo kale waxaan dhan calaamadeynay qoraal ku dul qori kartaa hadii markaas aad rabtid inaad qoraal ku qortid qoraalkaas ku dul muujin kartaa si qofka uu dirtid oo qoraalkii wixii dhan iyo calaamadii ama meesha ku muujisay wixii dhan faham markuu dambeysana okay soo meesha waxa ugu muhiimsan ma ay doonaa in copy iyo wax soo dhigi karaa laakiin isla markaasna waa save gareysan kartaa sawirkii oo meel kamid ah desktop-kaaga dhiga kartaa inaad save mail ku dhahdo aad samayn kartaa waxa kale oo samayn kartaa inaad email u dirtid ama inaad daabacatid waxa kale oo samayn kartaa inaad sawirkii aad u dirtid Word isla markiiba inuu Word ku geeyo sawirada harada sawir Word qoraal ah wadayo kale inuu kamid noqdo rabtaa Word aad geyn kartaa waxa kale oo geyn kartaa PowerPoint aad geyn kartaa laftirkiisa soo celi PowerPoint-ga oo kale geyn kartaa isagana marka PowerPoint ku soo dhufto isla markiiba PowerPoint-ga uu qaada waxa PowerPoint-ga uu ka soo bixi doona kadibna PowerPoint-ga rabtaa inuu sawirkaas ka sii mid noqdo sharaxaadii 10 ku muujisid intaas in ka badan ayuu ku sameyn karaa adiga ku baasha waana mahadsantahay